سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترحب. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kusoo dhowaada daawadayaal qaybtii labaad ee taxanihii taariikhda xabiibkeena muxamed caleyhi salaatu wasalaam. qaybtii hore waxay noogu joogtay hordhaca dhalashada nebiga caleyhi salaatu wasalaam, waxaana ay noo maraysay sheekadii haashim, nebiga awowgiisii labaad. haashim sheekooyinkiisa waxaa ka mid ah inuu maray yasrib, taasoo ku taala bartamaha wadada uu maro safarkiisa ganacsi ee shaam. halkaa wuxuu ku guursaday gabarh layidhaa zelma bintu camri oo reer cadiyi kana ahayd reer najaar. dabadeed waxa uu nagaaday in muddo ah, kadibna waxa uu ka tegay iyadoo uur leh. intaas kadib waxa uu ku dhintay qaza, dhulka reer falastiin, waxaana ay u dhashay salma wiil ay u bixisay shayba cirada uu lahaa daraaddeed. wiilkaasi oo ku dhex barbaaray reer abtigii oo deganaa madiina, mana ay ogaan adeeradii ilaa uu gaadhay 7 jir ama 8 jir. intaas dabadeed waxa ogaaday adeerkii mudalib, kadibna waxa uu kaxaystay maka. markii dadka ay arkeen waxay u maleeyeen inuu yahay adoon usayb mudalib, kadibna waxay ugu yeedheen wiilkii yaraa cabdimudalib, adoonkii mudalib. sidaas ayaanu ku caan noqday. haddaba cabdimudalib waxau ahaa ninkii ugu wanaagsanaa, ugu quruxda badnaa, uguna weynaa xagga xajmiga jidhka dadka dhexdooda. wuxuu sharaf ku yeeshay xilligiisii sharaf aanay cidi weli gaadhin. waxa uu ahaa hogaankii quraysh, waxauu ahaa ninkii iska lahaa safarkii maka. waxa uu ahaa mid karaamo leh oo la adeeco oo deeqsi ah, waxaana lagu magacaabi jiray bixintiisii kii shubidda badnaa. cabdimudalib waxa uu ahaa mid cuntada siiya masaakiinta, duurjoogta iyo shimbiraha, waxaana lagu naanaysi jiray midka dadka quudiya, shimbiraha iyo duurjoogtana cunto ku siiya buuraha korkooda. waxaa lagu sharfaa qodidii ceelkii zamzamka kadib markay aaseen qabiilo la odhan jiray reer jurhum markii ay ka qaxayeen maka. waxa uu ahaa cabdimudalib mid riyo lagu tusay ceelka halka uu ku yaalo, dabadeedna waa uu qoday. waagii cabdimudalib waxaa dhacay weerarkii maroodiga. abraha boqorkii xabasho ayaa yeman kala yimid 60,000 oo ciidan xabashi ah, waxaana la socday tiro maroodi ah si ay u dumiyeen kacbada. markii ay soo gaadheen webiga mixsar ee u dhexeeya musdalifa iyo mina ee isku diyaariyeen in ay weerar ku qaadaan kacbada, ilaahay ayaa u soo diray shimbiro koox u socda, waxaanay tuurayeen shimbirahaasi dhagaxaan dhoobo la dubay ka samaysan. ilaahayna waxa uu ka dhigay bal la cunay. arrinkaasina waxa uu dhacay dhalashada nebiga horteed caleyhi salaatu wasalaam in ka yar 2 bilood. nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam aabihii cabdilaahi waxau ahaa kii ugu wanaagsanaa carruurtii cabdimudalib, una dhowrsoonaa agtooda, loogana jeclaa agtooda, waxaana uu ahaa kii gowraca ka badbaaday. arrinka gowracuna waxa uu dhacay markii cabdimudalib uu qoday ceelkii zamzamka. quraysh ayaa kula dooday ceelka inay la maamusho, dabadeedna waxa uu nidar ku maray in haddii ilaahay siiyo 10 carruur ah oo wiilal ah oo ay gaadhaan heer ay difaacaan, inuu gowrici doono mid ka mid ah inamada. markii ballankii ilaahay u dhabeeyey waxa uu qorituuray inamadiisii. qorituurkana waxa uu kusoo baxay cabdilaahi nebiga abiy caleyhi salaatu wasalaam. dabadeed waxa uu aaday dhankii kacbada si uu usoo gowraco, balse waxaa ka diiday quraysh. sida kutubta qaar qoreen waxaa loo tegay islaam faal ka sheegta. dabadeed waxay ku talisay in 10 halaad la diyaaro oo loo qoritooro isaga waa cabdilaahi iyo halaha. dabadeed haddii isaga qoritoorka ku soo baxo la kordhiyo geela ilaa 100 geel ah la gaadhayo. markasta cabdilaahi ayuu kasoo baxayey in la gowraco, balse markii geelu 100 gaadhay ayuu ka badbaaday oo geelu kusoo baxay qoritoorkii. sidaas ayaa nebiga loogu bixiyey wiilkii labadii la gowracay ee haddana la furtay. waxaana gowraca ka badbaaday nebi ismaaciil oo 1 lagu furtay iyo aabihii cabdilaahi oo 100 geel ah lagu furtay. cabdimudalib waxa uu u dooray inankiisii cabdilaahi nebiga hooyadii aamina bintu wahab, waxaana ay ahayd midii ugu sharaf badnayd dumarkii quraysh, karaamo iyo darajaba. aabaheed wahab, zayd binu suhra, waxau ahaa mid nasab iyo sharafba leh. meherkii iyo guurkii waa u dhacay oo u dhammaystirmay, waxaana uu degay cabdilaahi maka. dabadeed aamina bintu wahab waxa ay uur qaaday nebiga caleyhi salaatu wasalaam. muddo kadibna cabdimudalib ayaa u diray cabdilaahi madiina ama shaam howlo ganacsi. dabadeedna madiina ayuu ku dhintay isaga oo kasoo noqonayay shaam, waxaana lagu aasay gurigii naabiqa dibyaani. cabdilaahi waxa uu dhintay nebigu inta aanu dhalin sida saxda ah.